dagaal u dhaxeeya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka goboleedka Jubbaland ayaa ka qarxay nawaaxiga deegaanka Raaskambooni. Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in dagaal xooggan u dhaxeeya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka goboleedka Jubbaland uu ka qarxay nawaaxiga deegaanka Raaskambooni. Dagaalkaas oo ka socda deegaan lagu magacaabo Mananaane ayaa la soo warinayaa inuu aad u xooggan yahay oo labada dhinac isku adeegsanayaan hub noocyadiisa kala duwan. Ilaa hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaas oo ka socda Mananaane oo qiyaasaan 30 kiiloomitir u jirta deegaanka Raaskambooni. Maalmihii la soo dhaafay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa keesay ciidamo aad u badan. Ma jiro wax warar ka soo baxay dhanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan dagaalka saaka qarxay deegaanka Mananaane. Hase yeeshee Jubbaland ayaa dhankeeda sheegtay in ciidamada dowladda ay warar ku soo qaaday ciidamada Jubbaland. Ciidamada dowladda Jubbaland oo ku jira daaladooda ay isku difaacayeen ayaa jab xoog leh u geystay maleeshiyadka xamal laga soo daadgureeyay iyadoo ciidamada Jubbaland ay guulo wax ku aala ka gaareen ayaa lagu yiri war qoraalad ka soo baxay Jubbaland ayaa sidoo kale qoraalkeeda ku sheegtay inay la wareegtay difaacyadii ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku lahaayeen afafka hore ee deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana khasaare kala duwan ay gaarsiiyeen ciidamada dowladda federaalka. Wararka ugu dambeeyay ayaa sheegaya in xaaladdu kacsan tahay waxaana dhinacyadu ay kala heleen gurmadyo dheeraad ah kuwaas oo qulqulaya furunta hore ee dagaalka.